أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سيدا وخيركم وصونا الشيطان وعدوغينا إنما إنك لا تما هنا أيود إلهي يأمركم شيطانك وحو إذن فريا بالسوء حمان أيو إذن فريا. إنما إنك لا تما هنا يأمركم شيطانك وحو إذن فريا بالسوء حمان إذن فريا. يا والفحشاء فاحشو ذنب أو قبيحة أو شرعك كحن أيو إذن فريا. يا وأن تقولوا إن أدوكوا قوشان على الله إليه كركيسة ما شيء لا تعلمون إذن أكسونين وحا صورا شيطانك إذن فروا الإلهي إن الذنب مارك يا ذنب يو إذن فريا فاحشة أيو إذن فريا ذنب قبيحة أو نوع كالسلوي يا إلهي وحا وصن أهين إن أدكوا شيطان. يا وأن تقولوا إن أدوكوا قوشان على الله إليه كركيسة ما شيء لا تعلمون إذن أكسونين من تحريم ما لم يحرمه غيره وحن إلهي حرم من أول حرمتان ويا وحيا وكالنتود وحا سحاوية وحا شيطانك وصمين أيوي. وإذا وطي قيل اللهم لو يراهدون إلهي كفارتا اتبعوا راعة ما كي أنزل الله ولا أسودجي أو توحيد كاسا هي مركز تحليل الطيبات وحيابها حلاشة أول حلله. وإذا وطي قيل لهم لو يراهدون إلهي اتبعوا راعة ما كي أنزل الله ولا أسودجي قالوا حيليهن لا أياكو جهتا ما راعينا بل اسكدا ينتبعوا وحانو راعينا ما كي ألفينا آنو كهلني عليه ما يفركيس آباءنا آبا يوغين آنو كهلني waxaanu raacaynaa waxaan aabaadeenna ka soo gaarnay cibaadatul asnaam aan ka soo gaarnay aabaadeenna iyo sawaa'ibta iyo baxaa'irta oo la xarimo waxa weeye taqliidka aabaadeenna aynu ka soo gaarnay ayaanu anagu raacaynaa mana doonayna wax ilaahay uu soo dejiyey. bani aadamku sidaas ayuu u badan yahay. kufaarta hadda inkastoo laga warramaayo dad kastoo cusaada ayaa jira oo ayaguna wixii ilaahay uu soo dejiyey sharciga ay kala weyn tahay waxa markaasi ay soo gaareen oo dhaqanka ah oo dhaqan shareecada faaxish ku ah ayaa dad badan oo aad arkaysaa inay waxa weeye dhaqankaas ay rajaxayaan oo ilaahay sharciyadiisa ay ka rajaxayaan. marka waxay noqonaysaa ma wajadnaa calayhi aabaana ay soo gelaysaa. awalow kaana hamsadana waxay gelaysaa shay maxduufa wowduna waa ku cadfan tahay. waxaa si soo qadaraysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ayatabicuunahu mawdha ilaahay may iska raacayaan waxaas aabbaa'ooda ay kasoo gaareen may iska raacayaan. walow kaana haba ahaadeene aabbaa'uhum aabbayowgooda laa yacqiluuna shay-an shay kuwa aan garanin. walow kaana haba ahaadeen dha ilaahay aabbaa'uhum aabbayowgooda laa yacqiluuna shay-an kuwa aan waxba garanin ma iska raacayaan weye. caqligii aabba'dooda haddii wax ugaga daahiraan iyo haddii kalaba ma un iska raacayaan. hadda wax iska raac wax tari maysee waxaan waxaa loo baahan yahay meesha ay cuskan yihiin in la ogaado. walaa yahtaduuna haddana aabba'daasu aysan hanuuneyn oo aysan xaq ku hanuuneyn. aabba'dii hore amba dadkii hore haddii waxa weeye dad wax magarata ay ahaayeen hidaaye ilaahay xaggiisaana aysan haysanin waxyaabaha baadilka aho ay jideeyeen oo khuraafaadkaa in loogaga dayda ma ahan weeye. qofkii asagoo sharciga ilaahay u yimiday waxaas ku dayda hadhow meesha kuwaas ay maran ayuu la marayaa. wax cudurdaara oo markaas uu leeyahana ma jirta haba yaraatee. wamathalu ladiina kuwa masalkooda ilaahay kafaruu kufriyey kamathali ladii yanciqu ilaahay wuxuu noo miisaalinayaa kuwa gaalada ah oo mushrikiinta ah oo xaqa kasii jeestay iyo dadka waxa weeye xaqa ugu yeeraayo meeshay isu taagan yihiin ilaahay nooga warramaya aayaddan. alla marka wuxuu dhahay wamathalu ladiina kuwii sifadoodaw dha ilaahay kafaruu kufriyey waxaa meesha ku jirta waman yadcuuhum ila alhudaa iyo midka ugu yeeraayo hanuunka sifadiisa. wamathalu ladiina kuwa sifadooda kafaruu kufriyow ilaahay iyo waman yadcuuhum ila alhudaa hanuunka midka ugu yeeraaya kamathali ladii kii masalkiisa waa la to-ayuu dha ilaahay yanciqu u sawdaynaayo bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeeris mooyaane iyo wanidaa'an naado. qofkan waxaa weeye dadkan oo kufriyey u yeeraaya oon ilaahay khayrka la doonaynin waxa uu ka dhigan yahay walax yeeristaas mooyaane iyo naadada un dhawaaqa mooyaane wax kale aanan markaasi maqlayn oo markaasi waxaa weeye loo yeero. maxaa yeele waxaa weeye sawdkaasoo maqlaaya walaa yafhamu macnaahu macnihiisana fahmi maayo. marka waxaa weeye simaacu lmawcida ayaa markaasi ayaa laga la-yahay iyo inay tadaburaan sidii xoolahoo kale. xooluhu waxay maqlaayaan qowsaarka jira sawdkiisa waa maqlaayaan laakiin ma fahmayaan oo hadda ma macnay karaan. xoolaha xataa waxa weeye qowsaarka la jira markuu u yeero waa ay soo raacaan laakiin waxaa laga wadaa sawdkiisa ma macnay karaan laakiin sawdkiisa dhawaaqa ay ka saayaan saasay ku raacayaan. kuwaanu marka waaba kasii liitaan bani aadamka ah oo waxa weeye in xaqa loogu yeero xaqi markaasi aan raacaynin xayawaankaas waa ka liitaan weye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kamathali ladii kii masalkiisa waa la too yanciqu yow dha ilaahay
inciqaaqu waxaa weeye ariga markaasi oo loo dhawaaqo la kaaleeyo ayaa markaasi uu ka yimiday. yanciqu kaalaynaayo weeye bimaa shay laa yasmacu aan maqlaynin ilaa ducaa'an yeeris mooyaane iwa nidaa'an naado. sumuntaan musaga soo qadar mubtade hum kuwaasow ilaahay sumun waa kuwa maqala, bugmun waa kuwa afla, cumi waa kuwa indhala owl ilaahay. hadda waxa weeye intaas nafcigoodii baa laga qaaday, maxaa yeelay dhegahooda xaq kuma maqlaayaan, afkooda xaq ku sheegi maayaan, indhahooda xaq ku arki maayaan. sumun ayuu dha ilaahay waa kuwa maqala, bugmun waa kuwa afla, cumi waa kuwa indhala. fahum ayagu laa yacqiluuna ma garanayaan mawcidada, waxba kama kasaayaan. wax kasta haddii loo sheegana waxay ku dheefayaan ma jirto dha ilaahay. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow, kuluu cunow dha ilaahay min dayibaati maa shay kiisa xalaashaa rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. washkuruu shukriya lilaahi ilaahay ku shukriya, wixii ilaahay xalaaleeyane alla ku shukriya subxaanahu wa tacaala, in kuntum haddaad ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaayo. aayadda tanadda ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu nooga soo waramay mushrikiintii taxliilkii iyo taxriimkii beenta ayay sameeyeen, arrimahaasoo kaleentood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaan nahay dad mu'miniina ayaa alla noogaga digaya subxaanahu wa tacaala. oo waxaa ilaahay doonayaa subxaanahu wa tacaala nala kana doonayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala shay xalaala ilaahay uuna siiyo shaygaas inaan cunno, ilaahayna aanu ku shukrino subxaanahu wa tacaala. marka caadada ilaahay kitaabkiisa waxay ku doorsatay sida qaalibkaa in markaasi ahlu mako yaa ayuha naasu loogu naadiyo, ahlu madiinana yaa ayuha aladiina aamanuu loogu naadiyo, waase sida qaalibkaa. ee yaa ayuha naas waxaa dhici karaysa in markaasi waxa weeye ahlu maka kaliya aan loogu naadino dadka dhammaantiisa ay soo galaan, balse waxa weeye maxalka ay ku jirto ayaa xakumaya mar walba. ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waxau dhahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow, kuluu cunow dha ilaahay min dayibaati maa shay kiisa xalaashaa rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. washkuruu kuna shukriya lilaahi alla ku shukriya. risiga la cunaayo ilaahay subxaanahu wa tacala in lagu shukriyaa la doonaya. shukriguna waxa weye ilahay nimcadiisa ayuu siyaadiyaa. lain shakartum laaziidanakum maatow dha ilaahay walain kafartum ina cadaabii la shadiid. in kuntum haddaad ahaateen sawayow dha ilaahay iyaahu alla oo kaliya tacbuduuna kuwa caabudaya haddaadtiin, oo dadki ilaahay caabudaya ayaa alla ku shukrinaaya. qofaan alla caabudayni ilahay wax ku shukrin maayo, sida meesha ka cad. inamaa in kaleeta maahina xarama alla wuxuu ka xarimay calaykum korkiina almaytata maytadii ayuu ka xarimay. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markii waxyaabihii muxaramaadka ahay uu nooga soo waramay, haddana ilaahay uuna yidhi xalaasha hala cuno uuna dhahay. waxaa aayaddaanu ay xalinaysaa su-aal imaalaheeday oo maxaa xalaala la dhihi tegey, maxaase xaaraama. marka shayga xalaashaahu aad iyo aad u tira badan yahay, laakiin shayga xaaraamka ayaa markaasaa in lasoo koobo ayay sahlan tahay. marka kaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka balaaqadiisay kamid tahay, ilahay halkaa noogu soo xasrinayaa weye. marka xasriga kan qasadka laga leeyahane waxaa la radinayaa dadkii baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamka xarimay, iyo dad xalilo weeye bacdulmuxaramaat waxyaaba ilaahay xarima qaar kamida xarimay. marka xasrigan xasru ilaafiha la yidhahdaa. inamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay xarama calaykum korkiina alla wuxuu ka xarimay almaytata maytada ayuu ka xarimay, baktiga ayaa ilaahay ka xarimay. waxaana weeye shay wahiya maa lam yudaki sharcan weeye, waa wax shay sharciya aan lagu gowricin. waxay sunnadu haleeshiisay wixii neef xayiya laga soo gooyo, neefkiyoo socda ayaa wax laga soo gooyey, oo riya neef idaaya barida laga soo gooyey ama dhegaa laga soo gooyey. waxyaabaha noocaasa xaaraam weeye. reer baadiyaha waxay sameeyaan neefka dhegta inay ka gooyaan ay dhiiggiisa ayay meel iska mariyaan. waxa weeye dhiigu asaaba xaaraama sidiisaba. haddana waxa weeye shayga wixii laga soo gooyo neefka asoo nool, hataa neefka intaan ruuxu ka dhicin markii la bireeyo, haddii ruuxa uusan ka dhicin ee iyadoon ruuxa ka dhicin weli markaasi meeshii laga soo gooyo naftiioo ku jirta, meeshaas xubintaasu xaaraam weeye. waxaana dhici karaysa dadka qaarkiis inay ayagoo degdegsanayo meesha shaqa ka doonaya xoolihii markaasi ay gowraceen ayagoon weli nafti ka bixin inay markaasi qalliin ay ku bilaabaan. taasna halis weeye, waa in la iska ilaaliyaa. iyo wadama dhiigyow dha ilaahay, dhiiggan waa damulmasuuxa oo suuratul ancaam noogu imaan doona. neefka markii la bireeyo dhiigga kasoo boodaya dhiiggaasu xaaraam weeye, waase ku tegi doonaa. iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisi ow dha ilaahay, iyo walaxmal khinziiri doofaarka hilibkiisi. doofaarka markaasi waxa weeye isagana hilibka kaliya maahane dhammaantiis ayaa xaaraama weeye. ee waxaa la sheegay mucdamu lmaqsuud ayaa wuxuu yahay hilibka, ee hadda meel kale uu xalaal ka yahay ma jirta doofaarka weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisi ow dha ilaahay, qusa laxmu liannahu mucdamu lmaqsuud wagayruhu tabacun lahu, waa ka jaaliinkuba dhahaya. iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeyow dha ilaahay bihi maaga ligayrillahi ilahay keyrkiisa loogu sawdeeyey.
iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeyey bihi maaga likayrillahi ilahay kayrkiisa. aayadahan aayada u eg ayaa jiro haddii ilaah yidhaahdo suuratulmaa-ida aynu ugu tegi doono, marka meeshaas ayaa aad iyo aad loogu bayaani doonaa wixii ilaahay kayrkiisa loogu sawdeeyey. masalan ba waxaa weeye aydu wixa calaa ismi kayrihi, ilaahay magiciisa magacaan ahayn ayaa lagu gowracay. ihlaalkuna waxaa weeye rafcu sawd, sawdka oo la rafciyo weeye. sawdka ayay markaasay kor ugu qaadi jireen markay wax gowracayaan aalihadooda, oo bismi laata walhubal walcuza ayay markaasay xoolaha ay ku gowrici jireen. marka hadda shayga ayaa la magacaabay biismi saaxibihi ayaana loola jeedaa. marka ilaahay wuxuu dhahay iyo wamaakii uhilla loogu sawdeeya bihi maaga likayrillahi ilahay kayrkiisa. hadda intaas waxaa weeye waa la yska xarimay ayadoo shaygaasu xaaraam uu yahay ama ashyaadaasu ilaahay uu xarimay. alla wuxuu yihi faman ruuxii udira loo dhibaato geliyo, waxa weeye alja-atu daruuratu daruura ay u dhibaato geliso ilaa agli shayin mimaa dukira weeye. waxaas hadda lasoo sheegay oo meytadii laga soo bilaabo ilaa maa uhilla likayrillahi, qofkii dhibaata ay markaasi ay u qabato waxa weeye fa akalow oo markaasi cuna gayra baaqin ow ilaahay mid baxaaya kayrkiis xaal uu yahay, gayra baaqin mid baxaaya kayrkiis xaal uu yahay. oo waxa weeye baaqigu waa dadkii buqaada ahay oo imaamka caadidigaa muslimiinta ka baxay raggii fallaagada ahay weeye. iyo walaa caadin mid collaytamaayo kayrkiis xaal uu yahay, caadigu isaguna qaadicu dariiqi weeye. masalanba dadka inaji dadka fadhiista waxa weeye wax ka qaadanaya oo dadka meeshaas waxa weeye ku baadaya weeye. kuwaas iyagana loo banay maayo. qofkii aan intaas ahayn falaa isma dembi caleyhi korkiisa ma aanu dha ilahay waxau cunay. in allaha allana kafuurun allihi dhaafo weeye oo dadka awliyadiisa aho mu'miniinta u dhaafaaya, raxiimun allihi u naxariisanayo wou dha ilahi subxaana watacaala ahlu daacadiisa ilahay waa u naxariisanaya. maxaa yeele ilaahay amuurahaasow ilaahay waasiciyey. alla wuxuu yihi faman ruuxii udira loo dhibaato geliyo gayra baaqin ow ilaahay mid baxaaya kayrkiis xaal uu yahay. qofkii waxaa weeye daruura ay u dhibaato geliso. marka faman iduradaanu waxay kamid lamid taha layidhi istidraag oo kale weeye calaa cumuumi qowliyaa lasoo haleeshanayaa inamaa xarama calaykum almaytata wadamadaasa lasoo haleeshanaya weye. amuurtaas ilaahay subxaana watacaala waa waasiciyey, waxau u baneeyey inay cunaan. cunidda hadda hala cunee waxa weeye shaygaas oo meytada iyo ah haddii dhibaata ay daruura ay timaado, kayfiyada loo cunaayo a'imadu way ku kala duwan yihiin. a'imada saddexda oo waxa weeye aan imaamu shaafici ahaynin in la cuno lagana dhergay qabaan. maxaa yeele gaajadu waa daa'imay yidhaahdeen, qofka intay gaajaduba hayso waa cuni karaa waana ka dhergi karaa. a'imadu waxay ku ijmaaceenaa layidhi arrintaas weliba ijmaacay ku yihiin, laakiin waxay isku khilaafeenaa layidhi haddaan gaajadu qofkaan aysan daa'imaynin. imaamu maaliki wuxuu rajaxay isagu waa ka dhergi karaa waana ka saad qaada karaa. culummada kaleentoodna ayaguna waxa weeye oo sida abu xaniifa iyo imaamu axmed waxay yidhahdeen waa ka dhergi karaa, hase yeeshee zaad ka qaadan maayo. qaarna waxay yidhahdeen zaad waa qaadanayaa laakiin meesha uu isleeyahay xalaalaadka helaysaa intii gaarsiiyeysa kale u ka qaadan karaa. imaamuna ashaaficina waxau dhahay maa yasudu ramaq, wax wadnaha uun joojiya oo markaasi ayuu ka qaadanayaa. saas ayaa markaasa ayay ku kala duwan yihiin. qofka marka dhibaata day u geyso saasuu yeeli karaa. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala falaa isma caleyhi kaas dembi korkiisa ma aanu dha ilaahay. in allaha allana kafuurun allihi dhaafo weeye, raxiimun allihi naxariiso weeye. casharkeenna aayaddaas ayuu noo joogayaa, halkaas ayuuna ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam.